Okay, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا دمان walaalaha naga daawanaya barta Facebook waxaanu leenahay gabigeena waa idin salaamayna salaanta islaamka ayaa idinku salaamayna waxaa idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan caawa halkan ka bilaabaynaa dood muhiima oo ku saabsan mental health-ga amaba caafimaadka dhimirka maadaama lagu jiro maaragtay mental health week oo adduunka oo dhan rabo in lagu xusuusto ama maxay ahayd toonay la weyneeyo wax yar ii kaadiya wixii aan sheer garaynayaa shalay waxay ahayd maalin dunida oo dhan la isxusuusinayo isma aha laakiin la isxusuusinayo sida uu mental health-ga amaba caafimaadka maskaxda uu muhiim u yahay sidaas la ajligeed ayaan annaguna waxaanu doonaynaa in maaragtay aanu weynayno waxna iska niraahno wixii annaga naga quseeya صح weli waxa ma tihiin weli ma aragtaa أنا وكوجيدا أنا مي عرفتها waa ku arkaa alright marka waa wadaynaa dooda waa wadaynaa saciida iyo cigaala waad maqlaysaa soo maaha gabdhihii kale ma garanayo meelay kusoo daaheen laakiin way soo yara daaheen fawziya cod ma jiro mise aniga xaggayga waaye fawziya adiga xaggaaga waaye codka annaga cod waa jira hadda soo ismaqli mayno أنا وكم أغلى سفيان okay idinka may maqlaysaan qolada naga daawanaysa dadka naga daawanaya Facebook please ii soo qoro comment inaad maqlaysaan iyo in kale waan u jeedaa ilaa iyo 70 qof ayaa online marka fadlan commentigina waa arki karaaya ii soo qora haddaan la ismaqlaynin waxa waaye haddaan la ismaqlay waxa ma taraayo marka ii soo qora comment please ii sheega ina ay maqlaysaan iyo in kale warqaraaba ma lay maqlayaan waad maqlaysaan waa mahadsantihiin caasho xaaji iyo xiiqsan iyo kulli waa mahadsantihiin okay waa ka soconaynaa marka qofkii nagu soo biira oo dadkii meeshan ka maxsuunnaa inay caawa ka hadlaan ah internetkana iska hagaajiya please headphoneka oo dagaha aad bashanaysaanna iska hagaajiya waa mahadsantihiin kulligiin qaraaba aad maxamed aadaa u mahadsan tahay maxamed cali sabriye kulligii waad mahadsantihiin marka qodobkii waa ka soconaynaa halkan waxaan maanta kaga hadlaynaa saamaynta social media ama baraha bulshada isticmaalkooda ku yeesho annaga maxay ahayd dadka maskaxdeena sida horeba u sheegay waxaan wax yar faahfaahin ka bixinayaa maxay muhiim u tahay xanuunada maskaxda ku dhaca xanuunada jirka ku dhaca waa muhiim sababtu waxa ay tahay meel baa ku xanuunaysa waad ku xanuunsanaysaa kabacdina caafimaadkaaga ayaa khatar galaya sidaas si lamid ah maskaxdana xanuun baa kaaga dhacaya waa mahadsantihiin reer Canada maskaxdana xanuun baa kaaga dhacaya laakiin maxay kaga duwan yihiin in xanuun kaa gaadho ama dhaawac uu kaa gaadho gacanta lugta beerka caloosha cajirka meel kasta oo jirkaaga ka mid ah amaba xubnaha gudaha kaaga jira adiga sida beerka wadnaha xiliyaha inuu xanuun kaa gaaro inaad maskaxda ka xanuunsato maxay ku kala duwan yihiin maxay ku kala duwan yihiin maskaxda eebba subxaana wa tacaala markuu dadka abuurayay wuxuu geliyey meel asturan sababta loo geliyana waxa waaye inay muhiim tahay oo ay tahay qofka bini'aadamka ah organkii ama xubintii jirkeeda ka mid ahaa oo hagaayay oo nolosheeda ku toosinayay sidaas la ajligeed ayay tahay waa mahadsantihiin kulli gaalkacyo kulli soo dhawaada sidaas darteed ayay tahay in caafimaadkeenna maskaxda aan aad iyo aad iyo aad uga fakarno okay
marka ilaahay muxuu subxaana watacaala sameeyey markuu maskaxda noo abuuraaye wuxuu ku daboolay bahaar weyn wuxuu ku daboolay laf adag wuxuu ku daboolay maqaaro intaas oo maqaaro oo la kabci ah oo iska hooseeya wuxuu haddana kasoo dhaliya timo waxaas oo dhan qurux ka sokow waxay noo yihiin asturaad dhinaceena maskaxda ah oo waxa la geliyey meel ay maskaxdeena ku nabadgelayso oo haddaanu kufno aanay buluq soo dhacayn waana wuxuu haddii dhagaxna lagu soo tuuro aanay qadri tuuro ayada naga dhacayn muhiimadaas ay maskaxdu leedahay haddana alla subxaana watacaala maskaxda halka cawradu kaaga taalo kumuu abuurin halka maxay ahayd tonay lugaha kaaga yaalanna kumuu abuurin wuuna ilaahayna wuu ku abuuri karay waa awoodiisu waxa waaye waa waasac waa wuxuu doonuu samayn karaa ma aanu yeeline meesha madaxa ugu sarreysa ee jirkaaga ugu sarreysa ayaa alla kaaga abuuray maskaxda kuu geliyay taasina waxa weeye inay maskaxdu tahay hogaankii jirkeenna haddaan u fiirfiirsano bini aadamaha xikmado fara badan oo dhinaca alla iyo abuuristiisa ah ayaanu ka fahmaynaa sidaas la ajligeed maskaxdii eebba subxaana watacaala ee adiga adduunka ku keenay oo sidaas u asturay oo uu meeshaas daboolan uu geliyey maxaa marka adiga waajib kuga waxa waajib kuga saad beerkaaga wadnahaaga kaliyahaaga farahaaga lugahaaga gacmahaaga afkaaga sankaaga dhagahaaga lugahaaga adimadaada oo dhan aad u ilaalinayso si lamida inaad u ilaaliso horta taas ayay muhiim u tahay ta kale maskaxdu waa tan hagta jirka intiisa kale sidaan haddaaya sheegay maxay soo u hagtaa marka maskaxdu amarada aan ku soconno oo dhan ayada ayaa soo dejisay example tusaale maanta inaan barnaamijkan qabto maskaxdayda ayaa amarigu siisay haddana inaan soo anigoo raawan aanan idin hor imaan oon dhar soo xidho oo isu soo mayro oo isu soo toostoosiyo oo qaabka bini'aadanimood ugu arki kartaan oo indhihiinna u qalma idin hor imaad waa amar maskaxda ka yimid waxa kaloo amar maskaxda ka yimid intaanoo gabdhood inay iyaguna go'aansadaan inay aniga igu soo biiraan oo qodobkan muhiimka igala hadlaan ilana rays gareeyaan oo wacyigelin bulshadooda soomaaliyada af soomaaliga ku hadlaaya ay siiyaan muhiimadaas oo dhan waxay ka timi amarada maskaxda haddaba muhiimadeenna maanta ma aha inaan sharaxno xanuunada maskaxda laakiin waxa waaye wax annaga iyo idinkaba qof kasta oo hadda i daawanaya oo social media iga daawanaya wax muhiim u ayaanu ka hadlayno maxaa waaye social mediaha aan isticmaalayno qaabsee ah ayuu saamayn ugu yeelan karaa badqabkeena dhimirka mental health maaha xanuunka dhimirka mental health waxa waaye badqabka ama caafimaad qabka dhimirka see marka ugu yeelan karaa because ilaahay qof walba muu abuurin isagoo maskaxda ka xanuunsanaya ya dad dhifa ayaa ayagoo maskaxda si ka alla abuuray laakiin alla badankeena wuxuu abuuray annaga oo maskaxdeenu hagaagsan tahay haddana dunida markaanu nimaadno ayaanu qaab nololeedkeena daraadiis xanuunsanaa let's talk about marka maskaxda iyo say isugu xiran tahay caafimaadkeeda iyo isticmaalka social mediaha waxaan rabaa marka inaad wax yar ii sabartaan waxaan idinla wadaagayaa qoraallo aan sidaa u badnayn oo aan rabo in ay doodu ku furanto screen share sameynaa raalli ahaadayahe okay reer facebook waa u jeedaan qoraalkan soo maaha martidaydana way u jeedaa gastigayga ka qayb galaya dooda alright halkan waxaan ku qoray af ingiriisi sababtu waxay tahay dad badan oo af soomaaligu dhibaayo ayaa daawadayaal iyo laakiin aniga waxaan wax kasta ku sharxayaa af soomaali gabdhaha igala qayb galayana af soomaali bay ku hadlayaan waayo waxaan rabnaa inaan af soomaali dadkeena soomaaliyeed luuqadooda wax ugu sheegno halkan waxaa ku qoran baraha bulshada iyo saamaynta ay ku yeeshaan mental healthga ama caafimaadka badqabka dhimirka saamaynta ay baraha bulshada ku yeeshaan badqabka dhimirka ayaa doodeenu ay ku saabsan tahay aan marka idin dira dulmaro haddii martida joogtaa ay qalin iyo warqad haystaanna inay shay hadhowta dooda ay ku xasuustaan markay dooda ka qayb galayaan ay xasuusan lahaayeen waxaan horta idiin wadaa ugu yaraan 450 milyan oo dadka adduun weynaha ku nool ah ayaa mental xanuunsada may maqlaysaan waa 450 milyan 450 milyan oo qof ayaa dadka dunida ku nool waxaa ka xanuunsadaan maskaxda
haddii ay dadkaasi helaan halkaas xoogaa waxaa ku jira maaragtay qalad oo dhinaca money ayaan ka wadaa haddii ay dadkaasi helaan maxay ahayd toone hadday dadkaasi ay helaan caawinaad abra periodku ah oo macnaha ku habboon haddii ay helaan hadda waa 450 milyan oo dunida maskaxda ka xanuunsan right now aan joogno caawa aan hadlayno 450 milyan innaguna dadkaas dunida ilaa adduunkaanu ku nool lehe ayaanu ku jirnaa waa tiro baltaa meel ku qorta intiina daawanaysa oo iga daawanaysa Facebook iyo in kale si aad u yaqiinsataan mushkiladda tani hadday marka dadkaasi ay helaan support ama caawinaad ku habboon laba bay mid noqotaa ama way soo caafimaadaan oo way soo raystaan ama waxay ku noolaadaan nolol iyagoo xanuunkii hayo oo dawo qaadanaya bay waxay ku noolaadaan nolol effective ah oo wanaagsan oo sida dadka caadiga ay u nool yihiin oo kale ayaa noolaadaan dadkaasi in badan oo ka mid ah waxay wajahaan ama face gareeyaan amaba ku yimaada social stigma waxa afka qalaad lagu yira oo laga wado cunsuriyeynta xanuunkooda waana fahmayaa haddaan la isdabaalinaynin idinka intiina badan markhaati baad ka tihiin sida aan ula dhaqanno dhaqan ahaan bulshada Soomaaliyeed markaanu nahay saana ula dhaqanno qofka xanuunsanaya social stigma that means waxa waaye bulshadii oo ku cunsuriyeynaysa adigu qiyaastii dadkaas xanuunsanaya qiyaastii 9% waa 450 milyan oo soo sheega 9% qofoodba 100% waxay sheegaan in ay noloshooda istigmahaas ay cunsuriyeyntaas lagu cunsuriyeynayo xanuunkooda in uu problem weyn ku keenay noloshooda ya iyo inay ku adag tahay inay helaan kaalin wanaagsan oo caawinaad wanaagsan darbo wanaagsan oo ay ku tiirsadaan in ay helaan inay ku adag tahay ayay sheegeen dadka xanuunsanaya 9% kamid ah maxaa xanuunada dhimirka marka kuwa ugu caansan oo badana common ah oo dadka ku dhaca waa depression iyo anxiety qof walba waxbuu af Soomaali ku macneeyaa depression anigu qulub baan ku macneeyaa anxiety-na warwar saa'ida iyo naxdina fara badan iyo qofka oo fisha waxyaabo khatar ah inay naftooda ku imaadaan how is our situation on this marka qodobkan aanu ka hadlayno xagee baanu ka taagannahay waxaa marka dooda ku bilaabayaa gabdhaha ila jooga waxaan rabaa inaan ku bilaabo oo hadda igula jira igala gaashaan oo ah gabar ku nool waddankan UK iyo waxaa igula jirta Saciide Xaaji oo Mareykanka ku nool iyo Fawziya Faarax Weheliye Cadow oo ku nool hadda magaalada Muqdisho laakiin hore ugu noolay dalka Mareykanka waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo Cigaala Gaashaan ama Cigaala Jaamac Gaashaan soo dhaweeyo Cigaalo waa dhaweey walaal aamin waa mahadsan tahay waxaan rajeynayaa in la maqlo codkayga haddii Ilaahay yiraahdo haddii la maqlo ii sheega ma maqashin أنا واكم مغلا Fawziya ma maqashaa فوزي عض مله له سا كورنر كإني تاوتا في عن إيه تاوتو إيه ماشي Fawziya unmute أنا كاديجا adigu saad u hadasho hadhow هذا أوكي وايتري alright okay aniga xataa iyada codkeeda ma maqliyo I don't know the problem laakiin waxaan rabaa inaad ii sheegtaan please dadka naga daawanaya walaalaha naga daawanaya Facebook haddii dadka doodaya aad codkooda aad maqli weydaan alright igala ku soco walaasho waa mahadsantahay walaal aamin waxaan u maleynayaa in aad maaragtay ka hadashay mental illness iyo mental health well-being waxay kala yihiin mental illness waa qofka markuu qabo yacni maaragtay maxaa la dhahaa dhimirka maskaxda mental well-being waxaa waaye in aan caafimaad u qabno qaabka aan dareemayno qaabka aan u fikirayno iyo qaabka aan u dhaqmanayno inaan caafimaad u qabno oo dareemadeena dad la socda ay yihiin afkooda iyo maaragtay maskaxdooda waxa ay ku fikirayaan iyo waxa ay ka hadlayaan dad la socda inay yihiin
weliba markii aan maaragtay fikiraynana inaan u fikirno qaab maaragtay ku dhisan wax positive-ka ah oo mar walbaba aan nahay dad mala fiican leh inaan nahay taasna waa muhiim midda kalena maxaa la oran jiray in aanan nahay yacni in aan mental healthigeena uu fiican yahay waxaa lagu gartaa qaabka aan ula tacaalno markay waxyaalaha adagna soo wajahaan doorashooyinka aan dooranno maalin walba yani waxa aan qabanayno hadalladan ku hadlayno ficilada aan samaynayno yani waxaasoo dhan ayaa ka dareemi kartaa in aan nahay dad dhinaca maaragtay mental healthigooda uu caafimaad qabo qaab u fikirkeena qaab u dhaqankeena maaragtay choiceska maalin walba maaragtay aan gaarno oo kale hadallada afkeena kasoo baxaya ficilada aan qaadno meelaha aan tagno dadka aan la macaamilano ayaa laga gartaa in aan nahay dad dhinacaasay maaragtay u caafimaad qaba marka xiriirka ka dhaxeeyo baraha bulshada iyo maaragtay mental health well-being waxa qofka bini'aadanka waxaa loo baahan yahay maadaama hadda aan ku jirno maaragtay information age waxa la yiraahdo waqti ay sahlan tahay sidii xog lagu helo oo kale maalintii markii aan soo galno maybe laga yaabo qof walba inuu leeyahay Instagram and Snapchat, WhatsApp, Facebook, all of this annaga dhan waxaan ugu soo furmaya information saameyn ayay ku yeelanayaan maskaxdeena waxaasoo dhan ayay qaadaysaa way sawiraysaa so too much information ma aragtay ma fiicno qofku waxaa fiican in uu dado informationka uu maalin walba expose ku sameynaya maskaxdiisa haddii kale saameyn ayay ku yeelanaysaa waxaasoo dhan maalinta oo socdo so marka hadda ka fikir adiga oo ah inaan qof Facebook soo gasho oo intaas oo kun oo qof ugu xiran yihiin qof walbaba wax uu ka hadlay maaragtay kala duwan haddii aad ku xiran tahay dad maanta dhan fikrado oo maaragtay caafimaad lahayn oo kala soo gudbinayo dad information oo maaragtay xog oo yani sal ku lahayn yani oo la hubsanin soo gudbinayo dad dadka cabsi ku beerayo dad dadka walwal ku beerayo dad dadka been u sheegayo imagine maalin walba maskaxdaada you exposed to that information oo kaas oo kale xogtaas ayaa maalin walba qaadanaysaa sawiradii maskaxdaada ayaa sawiranaysa adigana qaabka u fikirtid iyo qaabka dareemaysid saameyn ayay ku yeelanaysaa oo laga yaabaa maaragtay dareemadaada inay hoos u dhacaan fikirkaaga inuu dhaawac kaa soo gaaro adigii wiswis iyo shaki yani you feed in this negative maxaa la dhahaa information maskaxdaada ayaa gelinaysa soo saameyn ayay marka maaragtay nagu yeelanaysaa waa waxa keena waad aragteen dee baraha bulshaha waa ku wada jirtiin waana aragtiin maalin walba waxyaalaha maaragtay dhacaya qofku waxaa loo baahan yahay inuu iska xadido how much information uu maalintii maaragtay uu fiirsado mise daawado mise uu akhrisado insha allah inta kalena walaalo kale un sii gudbinaya waa nila joogaa haya walaashay iyo joog mud iigal next waxa waaye saciida xaaji saciida waxay ku nooshaa waddanka maraykanka waa gabar iyaduna si positive ah ama si wanaagsan dhinaca wanaagsan u isticmaasha social mediaha dad badan oo kaleetana waan casuumay laakiin noloma ay joogaan oo kamaanay soo qayb gelin saciida maxay kula tahay marka dhinacan oo saamaynta oo mental macnaha caafimaadkeena maskaxda oo ku yeelato isticmaalka baraha bulshada xageen kaga jirnaa we are just waxaan started dooda un baan bilaabaynaa hadhow kale dadka korolaan doontaa fikirkaaga walaashay mentalkan wuxuu kula xiriiraa horta social media markaa fiirisid horta maalin kastaan ku jirnaa ama wax fiican aan kusoo gudbino ama dad waxun kusoo gudbinayo Soomaali haddaan nahayne horta qofka bini'aadanka markuu soo galo dad qofba si uu soo galaa wuxuu kusoo gudbinayo marka aan fiiriyo adiga markaa soo gashad aan arko aamin ahaan markaa ku fiiriyo waxa aad soo qortay ma waxaan jaajgareynayaa right away aan ku jaajgareynayaa ma dhegeysanayay waxa aad ka hadlaysid muhiimaddaa u soo gashay waxa aad tahay that means maskaxdaydii aniga ima siinin inaan positive aan adeegsado that's who I am so marka aan adeegsado maskaxdayda positive markaan adeegsado oo dhaho okay
waxa wanaagsan horta kow inaa aqriyo ciwaankaaga markaa aqriyo horta cabaar aan ku dhegeysto aan fahmo waxa aad ka hadlaysid kabacdi inaa aniga markaas commenti kaa soo bixiyo ama aan rabo haddaan rabo inaan qofkaas ku caawiyo barbaleenkaas u haysto dibkaas haysto ma ku fikirno inaan privatekiisa ugu gashid aad weydiisid maxaa la dhahaa waxa ku kalifay waxaan adigoo cayn so waxaan naqaanaa just right away waxa loo soo qoraa qofkii asoon la dhegeysan wuxuu ka hadlayna aqoonin which is baraha bulshada uu noo fududeeya maanta hadaaya ka dhawaajisay communicationka noogu muhiimsan yahay xiriirku noogu muhiimsan yahay sababtoo hadda maanta markaa rabo adiga London joogta haddaan rabo inaan wax kuwa soo weydiiyo is easy for me ii tahay aniga inaan messengerka wax kugu soo qoro ama cod kugu soo duwo ama qoraal kugu soo qoro wuu isku soo daldhaweeyaa la dhahaa so wuu isku keen soo dhaweynayaa ma fahamna markaaseeto inaa saas uu yahay Soomaali haddaan nahayne waxaan nahay dad iyo judgmentiga sameeya go-aan aan qof ka gaarno daqsigaaseeto oo raali ahaalasan daqsigaas inaan xukumeena qofkaas anoo ku fiirsanayo aanu ku fahmin xataa haddaanu ku fahmin xataa waa ku xukumaya marka anigii ma ahan laakiin maskaxdeydii waay maskaxdeydii mentalitygiya wuxuu yahay inaan anigii aan maaya aqoonteedii ay yar tahay aan u fiirsanin waxaan aan sameynayo aan fiijignaan baa u qabinba inaan ku dhegeysanayo so wixii aan soo maagilay inaan kuu qorayo qalad weyn ayaana ka fahamsanahay social mediaha haddaan nahay Soomaali laakiin waxaa fiican inay aan u fahanno sida markaa wareegtid aa fiirisid dadka kale siday u isticmaalayaan positiveka u isticmaalayaan aan wax ka kororsano annagana sidaasoo kale u bedelno sida wanaagsan inaan u isticmaalno waa maasantaa Saciida Xaaji Fawziyaan siin doonaa intaana siinin waxaan rabaa inaan dadka oo dhan maaragta ka qayb geliyo marka halkan wixii oo macno leh oo barnaamijka macno u leh ayaan soo akhrin doonaa commentiyada dadka halkan baar maaragtay octopus camal maaragtay farabadni ama shaqo badan isku haya Abubakar Cismaan waxa uu leeyahay dadka silsiladaha Soomaaliya lagu xiri jiray ayaa telefoon kaamira wata oo lagu wada xiraya see loola tacaali karaa dadkaas walaalaheena marka Abubakar hadhow ayaan su'aalaha weydiin doonaa gastiga amaana kaaga jawaabi doonaa Fawziya Faarax Weeli Cadow Sindiko waa gabar wadanka Mareykanka ku noolayd muddo aad u dheer dalka Jarmalka ku soo noolayd Holland ku soo noolayd dalal fara badan oo Yurub iyo Mareykanka markii dambe ku dambeysay haddana wadankeedii ka shaqaynaysa waxay isticmaashaa baraha bulshada weliba dhawaan dhibaata baraha bulshada loogu geystay marka dhibaatadaada hadda kaalama hadlaayo rantuuga ayaan kaala hadli doonaa Fawziya laakiin waxaan rabaa inaan noo dulmarto ma kula tahay inay saameyn fiican isku leeyihiin annaga caafimaadkeena maskaxda iyo isticmaalka baraha bulshada Fawziya soo dhawow assalaamu calaykum وعليكم السلام haddii la maqlay waa ii sheegi kartiin dhammaantiin waa idin salaamay ka qaybgalayaasha iyo walaalaha Soomaaliyeed oo naga daawanaya zoomka liveka iyo dhinaca facebooka salaamta islaamka idinku salaam assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo salaamtii shanta Soomaaliyeed Amina su'aashaada macnaha saameyn ma kula tahay inay saameyn xiriir ka dhaxeeyo baraha bulshada iyo macnaha dhibaatooyinka dadka soo gaaraya su'aashaada saas waay soo maha saas waay baraha bulshada markii la fiiriyo isticmaalka ummad walba meelay u badan tahay annaga markaan Soomaalinahay waxaan u badannahay السلام عليكم نادية سو دواو نادية مود قال أبايو مود قال ياهي هيه أنا وحنا أبضنا هاي تويتر إيو بدنا معناها إن متكن نوقو بدنا وفيسبوك سدان جعلها وخلطنا كرا تيك توك سناب شات كذلك إمادن هيه معناها ومدها كلا وحيو استعمالان أسفكسي حرير كالضد إنay bartaan
waxa la dhihi jira hadda ka hor oo kale penpal oo kale waxaa jiri jirtay back in the good days saaxiib Nairobi jooga ama saaxiib kale friends aan naqanaysin penpalkii oo kale inaad dadka xiriir kula yeelatid fikirkaaga asagoo oo dhibaato wadan inaad soo gudbisan kartid advocacy-na waa loogu talagalo oo hadda Facebook community standards-ka marka akhriso iyo marketing inaad ganacsigaaga ku samaysan kartid dhaqanka Soomaalida oo suuban ayaa mar walba la dhahaa annaga markaan hal nahnay individual aan nahay oo aniga lacag ka soo qaad meel aan soo fadhiisto oo aan dhaho anigoo gabar muslimada nahay waa in layga arkaa dhaqanka wanaagsanay oo muslimnimada diintu dambi ma gasho haddaan dhaho gabar Soomaaliyan ahay iyadana Soomaalinimadii waa in layga arkaa qofka kaleeto oo iga arkaa marka meeshaan dhibaatooyin badan ayaa lagala kulmay dad xataa waxaa jiro oo qaarkood go'aansadeen inay meeshaan dhan isaga tagaan qaarkoodna weli joogo qaarkood magacyadii bedeshay magac eber Fiyoora waxbay saarteen because qaab ay ula mucaamiloodaan qaracanka iyo dhibaatada soo gaartay ma jirin ma garanayo aniga laakiin waxaan aaminsanahay xiriir weynaa ka dhaxeeya xiriirka weyn oo ka dhaxeeyo baraha bulshada isticmaalkeeda iyo dhibaatooyinka maskaxiinka soo gaarayo qaar dadka bini'aadanimada shakhsi ay beegsadaan qofka waxay ku beegsadaan oo kale qaar sinjigiisa qaar waxay ku beegsadaan qofka diintiisa macnaha waxyaabaha xuquuqul aadanaha gafka ku ah taas waxaa ka daran gumaysiga casriga ahna waa ka jira dhaqdhaqaaqyo badan oo gumaysi casriga ka socda waxaa kaloo ka socda lacag aan macquul ahayn oo illegal ah oo meesha la isweydaarsanayo oo qof walba tuhun qofkii haddana dambi criminality la saarayo marka dhibaatooyin badanaa ka jira meeshaan laakiin sida loola tacaali doonana waa ka hadli doonaa qof walba qayb waa ka hadlaynaa waa kusoo xiraynaa annaga oo xalka suu nala yahay ilaahay baa xal haya xal ma hayno laakiin xalka suu nala yahay annaga oon dadka soo bandhigin ma ka tegayno meesha okay weli su-aashii baa socota naadiya waxaad nagaga soo biirtay gadaalaa nagaga soo biirtay waxaan haddaad maqlayso waxaan rabaa inaad muudka adiga iska saarto adaa iska saari kara ama anaa kaa saaraya kadibna aad ka qayb qaadato su-aasha ugu horeyso wareega ah oo gabdhaha oo dhan la weydiinayo oo ah saameyni ma ka dhaxaysa oo ma kula tahay inay saameyni ka dhaxayso isticmaalka baraha bulshada iyo caafimaad qabka maskaxdeena naadiya السلام عليكم. كاسارة مودك عليكم السلام. وعندي والله سلامي كل جين. Yes وكده حيان. First مركو عرف social media وحلو سمية for people to communicate. سيدتكو كلا فوق to communicate. Especially سيدتكو حريري لهايين هيها قصة. سيدتكو حريري لهايين ولي بدتك كلا فوق. For example dad baa jira aanay soo gaari karin dad baa kala lumay like example metal dad isku school ahayn dad aan kala maqnayn ayaa loogu talagalay dad waxaa jira guriyaasha iska jooga hooyooyin badan oo guriyaasha iska jooga Facebook uu noqday a place meel ay friends ku yeeshaan wuxuu noqday a zone ay friends ku yeeshaan meel ay waxay u noqotay social media waxay u noqotay a stress relief place meel ay dad kula kulmaan oo ay taageerayaal ku yeeshaan dad ayaga taageero oo fans lan waxaa jira dad badan oona ka bixin guriyaashooda oo way baxaan laakiin maaha very social maaha dad mujtamaca dhex geli kara waxaa jira dad jecel to be sitting inay gurigooda iska joogaan ay behind the computerka shaashada kala hadlaan dadka marka social media wuxuu ahaa a place for positiveness meel positive loogu talagalay wuxuu ahaa meel dad badani يعني هو ها stress relief ويا social media but 2020
wuxuu noqday meel negative meel loogu talagalay in qofka lagu xumeeyo si xun loo use gareeyo dadka lagu caayo been la sheego sawiro la soo dhigo tuham dadka la saaro intaasaan odhanaya marka social media wuxuu ahaa meel positive oo dadka loogu talagalay inay dad badan buu ahaa stress relief dad badan baa jeclaa inay dad badan xiriir la yeeshaan wuxuu ahaa meel education ka socdo wadamada adduunka oo dhan ayaa ku jiray soomaalida badana waxay iska baran jireen a lot of marriage guur badan baa ka dhacay through Facebook through Instagram Snapchat all kinds of social media laakiin imika wuxuu noqday for Somalis especially meel ceebun ka socoto all right su'aasha xigta waa maadsantaa maqnashta Nadia round 1 yes waa ku maqlaya right dib baan u noqonayaa marka wareegga labaad waxa waaye wada waxay hadda ku dhamaatay qof walba fikirku soo jeeday laakiin fikirkiisu isku dhow yahay cigaalo ayaan ku noqonayaa cigaalo hadalkii ugu dambeeyay Nadia waxay sheegtay waxyaabo kale oo positive ah oo social media uu lahaan jiray waxay tiri dad waxay jiray aan social contact samayn jirnay banaanka u bixi jiray oo social media dhexdiisa saaxiibo iyo fans ku yeeshay oo communication ku sameeya oo dhinacaas markaanu fiirino waa dhinaca macnaha faa'iido leh way runtii oo dadka qofkii lonely dareemaya ama qofkii cidla dareemaya qurbahana waa cidla badanya siiba qurbaha guryaha lagu wada xiran yahay marka maxaa u malaynaya inay isbedeshay waa daminaya raalli ahaada mid marba mid baa iska soo dhacay inuu isbedelay sidii hore oo social media marka hore ku bilowda isticmaalkiisa inuu iska bedelay maxaa u sababa oo 2020 aan u aragnaa dadka caayaya dadka codad sharci ah ee ka duuban soo dhigaya dad sawirra qaadaya dad isfadeexaynaya kuwa isku dhaga hadlaaya kuwa is abusaya kuwa baad is weydiisanaya maxay kula tahay oo isbedela cigaalo hello cigaalo okay waan ka gudbayaa Saciido maxay kula tahay inuu isbedelay meel maqle haddaan ku maqlahaa anaa ka qaada mid hadda mili maqlaa raali ahaada cigaalo sorry Saciido sug cigaalo timid ayaa cigaalo ku socaba okay sorry yani aniga hadii aan dib u fiiriyo waxaa la rabaa ma aragtay maadaama aan nahay bulsho wax badan la soo ma aragtay yani wadankeen waa burbursanaa okay waxaan nahay bulsho dib soo aragtay waxyaalo kala duwan soo martay hadii yani aan fiiriyo horta da'da dadka marka dadka oo Soomaalida social media isticmaal marka waa inaan fiiriyo dadka qaar waxaa jira waxaan nahay bulsho waxyaalo badan xambaarsan waxyaalo badan la soo tacaalin waxyaalo badan ka bogsanin oo yani anaga dhan dad luggage wadaan nahay markii social media la soo galo qofka la hadal uu yiri ayaa taabanaya because qofkan waa qof already gudihiisa waxyaalo badan ka buuxaan waa danqanaya qofkii aan waad aragtay markuu danqada de explosionka waxa dhacayo qabiil lagama gudbin waxyaalo badan wax yani qof caawinaad raadsada ma jiro يعني a lot of mental health issues bay dadkii wada wataan waa arkaysaa hadda maanta aan soo galo aniga social media aan meeshan gareeyo hal qabiil anoo xitaa xumaan ka wadin aan iska dhoo ereyga daarood haddeertaan oo kale 10 meelba wax kasoo 10 qof baa kugu soo boodaysa meel aa u wadid xitaa ma garanayaan you see because dhibkii iyo wixii maba ay la tacaalinba waa dad cuqdad ka buuxda oo caloosha ka jiran kulli they have got a lot of undealt issues ma bogsanin bulsho aan bogsanayn ayaan ku dhex jirnaa midda kale wixii qaylad iyo buuqa iyo qaxi iyo dhibkii marka lagu jiray iyo jihaadkii waalidiintii berigii markii wadanka lagu noolaa oo
barwaaqada iyo nabadda ay jirtay hooyo xasiloon baa ilmihii soo korisay bulsho xasiloon bay kusoo dhex koreen dhibaato ma jirin ilmo akhlaaq iyo edab la barayay ahaayeen hooyadii waqti iyo energy iyo tawar bay u haysay ilmaha edbintooda ilmaha akhlaaqdooda wixii oo dhan waa hadda ilmihii oo ma aragtay akhlaaq la soo barin waa aragtaa social media si uga caaytamayaan waaba yaabaysa cunugan Soomaali ma yani you question ilmo Soomaali saas laguma ogeen akhlaaq xumadii wuxuu ku hadla islaamo af ka waaweyn oo dhali karo waxyaalaha ugu yeera waa maqasheen midda kale dad jiran baan nahay dad ma aragtay waqti la gelinin baan nahay dad aqoontooda hooseysaan nahay dad aragtidooda fogeen baan nahay intaasoo dhan waxaa keenay waa waxyaalihii burburkii dagaalkii iyo colaadii sokeeye aan ka dhaxalnay soo dad waxyaalo badan oo dhib badan dhaxlay ayaan nahay soo midaasna in lagu ma aragtay la ogyahay midda kale oo jirto waxaa weeye social mediaha markuu uu gaaray dadkaanayta geeyey Soomaaliya internetka may xadadin lagama wacyigelin bulshadii dhibaatada uu leeyahay internet safety lama barin waalidkii ilmihii yani they accessing yani wax parental control la dhaho ma jirto ilmihii ayagoo da'yar oo caqligooda yar yahay ayaa waxyaalo maskaxdooda ka xoog badan lagu expose gareey hadda wiil ilmaha yar yar oo falalku xun galaya waa waxyaalo ay soo fiirsadeen filmaan ay ka arkeen gabdho lagu sameynayo de markuu xaas waxa maskaxdooda ay gashay inay tahay yani wax la sameyn karo oo kale remember waxaan nahay dad awalba dhaqankoodii adkaa yani dad dhaqankoodii dhaqan adkaa af adkaa waxaasaa nahay oo weli la jaan qaadin ma aragtay waqtiga hadda lagu jiro oo kale midaasoo kale waxaa ku tusaysaa aqoonyahankeena siduu u hadlayo yani dhaqankii inuu xoog leeyahay waxaa ka arkaysa aqoonyahankeena xitaa PhD buu haystaa laakiin hadallada afkiisa kasoo baxayo yani qof aqoon leh inuu ahayn oo kale ayuu u hadlayaa waa wax mar walba la fajaco oo la yaabo yani siduu u adeegaya dhaqanka Soomaalida ma guuraan yani the guy went to university intaasoo sano but weli wuxuu u fikirayaa awowgiisi siduu u fikiri jiray oo kale so waxyaalahaas oo kale ayaa keenaya midda kale oo keenaysa waxaa weeye dhibkan iyo waxaana arkaysa cadaalad darrada xaq darrada masaakiinta xoolahooda la dhacayo dumarka la yasayo it's a lot waxyaalo badan ayaa jira side effectigana waa waxaan hadda gacanta aan maaragtay maanta aan ku hayno diinta afka waa ka sheeganaa Soomaali 99.9% muslim baan nahay taas calaamad su'aal weyn baa saaran dhinaca diinta bixitaa ma galiyo aniga marka insha Allah intaas baan kusoo koobaya waa mahadsantahay nala joog marka ugu yaraan hal su'aal kala ku dhiman waraad Saciido badda hadda waxay noo maraysaa oo ay gabadhan cigaala gaashaan sheegtay in trauma nahayo dhibaato fara badan soo marnay dhibaatadii faraha badan oo soo marnay aanan ka daawoobin annagoon ka daawoobin wax degnina iyo wax hormaca oo nala sii degana aan jiraan social media soo wada galnay taatana ay dhibaatada ay sidaas maaragtay ama qof walba oo qofka u damqanayo oo jirkiisa u damqanayo la qabtaa mase fikirka duwanaa qabtaa waa la qabaa intaa sheegi lahaa maskaxdeeda ku jirta oo malasaa inay og tahay midda kale aan ku daraa waxay tahay dhibaatada kaloo hadda maanta haysata ciyaalkeed waxay tahay anagaa saambal u ah hadda maanta adi aad wadaama si abaayo sheegtay dhul burbursanna aan ka imaanay qorbiya aan wada imaanay qaarkood ay soo mareen tahriib qaar caadi normal u imaadeen hadda ani saambal aan u ahay markaa social media soo galayo haday saambal u tahay qof kale saambal u yahay marka ani aan wax positive ku hadlayo wax fiican sameynayo ku hadlayo ama laga yaabo inayba dad i fiirsaninba oo hadle qofkii kale oo caytamay oo buuqay qaylinayay ay daawanayaan dadkii ama sheekhiyo wacdinayo waxa arkaysaa 10 qof 20 qof daawanayso qofkan kale 20 kun daawanayo so qofkaanito aad saambal u noqday abaayo hadda ilmihii sheegaysa caytamaya aniga marka ilmihayga aan same like gurigeenoo kale marka maalin kasta ilmihayga caynaya aan ku qaylinayo aan wax ku tuurayo ma fiicnaanayo cunugaas same waxa aniga sameynayo uu sameynaya ugu dayanaya
sidii aan maqli jiray hooyadii allah u naxariistay ratiga weyn meeshuu maro kan yarna waa ku shalab soo qofka weyn hadduu meeshaa maro qofka yaraa wuxuu ugu dhigay basiit inuu si fudud ku mari karo soo markaa anakii aan dadkii waaweynaa ay sacaynayaan ay privatekooda isku tilmaamayaan ay buuqa qeylinayaan ama nimankoodii gurigii qoftaas gurigeedii laga sheekeynayo ilmahaneetu way arkayaan wax kasta waxay u maleynayaan wax iska caadi ah oo just life social lifekeeni ku jiro normal lifekeeni uu ku jiro taas ay ku hanaqaaday markii ilmaha waxa sii haleeyey waxyaabahaasna ana waa u arkaa waxyaabahaasaa ka mid waa mahadsan tahay hooyooyinka iyo hooyooyinkiio haddana maanta dhibaato ka haysato cunuga hadduu aabbo u jeedin hooyadii keliya tahay waxyaabahaasna ilmihii waa factor ku samaysa waa mahadsan tahay alright fawziye faarax weheliye cadow adiga waxaan rabaa inaad fakarkaaga ku darsato qodobkan hadda aanu soconno ramtuuga wareegga labaad ee doodeenna oo ah dadku waxay qabaan saroma aanay ka raysan taasaa ugu wacan macnaha inay baraha bulshadu sidaasay noqdaan saromihiina lagama daawoobin mana laga raysan marka fawziye fikirkaaga ma la qabtaa gabdhahan kale mise fikir ka duwanaa qabtaa aniga fikir ka duwanaan qabaa haye laga yaabana inaan qayb kala mid ah haye hadda anaka waxaan ka hadlaynaa dadka isticmaalo ummado badanaa isticmaala laakiin aniga I want to be specific dadkeena dhexdiisa Soomaaliya ka hadlaynaa social media userska horta trauma waa jirtaa laakiin traumada kasoo qaad aniga i haysaa Facebook aan soo galay dadaacay hooyaday waxaa laga yaabaa inay jooginba aabbey oo dhintay still excuse ma naqanayso just because trauma ay haysa waxaan rabaa suubina because haddaad dibadda joogto waxaa weydiisan kartaa garab ama caawinaad sax haddaad dalkii joogtana in qalad ay tahay waxaa suubinaysid waxbaaba caddaynaya waxaa arkaysaa meelaha qofkii waa macnaha sidii la rabaa la yeela hadhow markii waxay dhammaanayaan cafis iyo masaamax u dhaha cafis iyo masaamax maxuu u dhaha hadoona wax qalad suubina qofkan waa is ogyahay inuu wax suubiye haye sax haye 5 beri ka bacdi oo haddana kuu imaada lacala meela isku aragteen meesha Saciido khayr jecel camal isku aragtaan meeshaad fiicanay abbaay hadda ka hor aan saas ku dheeyay cafi marka inay khaldantahay waa ogyahay haye marka qofka haddoo weynaadana waxaa waaye sidiisaba social responsibility a saaran ama internet ha jooga ama yowna joogin sax marka uu Facebook samaysanayo users policy a jira sharciyaa jira oo soo saxiixay waxaa kaloo saxiixay data policy wax la dhaho oo ah qofkan privacygiisa inuuna ku xadgudbin sax waxa xataa messengerka la iskugu diri karo oo ogyahay marka aniga traumada excuse ima aha I'm sorry justificationka traumada okay haye because traumada internetka maana trauma badana anaka dhanna wada haysato too shaqadaana haysato too booskaaga ku haysato jidkii oo sidaa rabta laamiga subaxii shaqo markaa aadayso aad lugeynayso adil rabo bajaajadii iyo jidadka la istaajiya marka aniga every trauma aan haysta mahan haddaan keeno waa la hoogi lahay haddaa dadka la fuulo haye marka odagayga isu soo afahmi weyne intaa imid qabaabacaan tarasko trauma is not a reason midda kaleetana waxaa waaye qofka trauma inuu qabo haddaa garata ama qofka inuu wax qalad ku joogo waxaad dhihi kartaa adiga haddaada ka sayna xataa I am sorry ma ogeyn qofka kugu suubiye waxaan laakiin I am sorry aniga qodobka qofkaas dadka dhibaatayhaya hadduu ii sheegto traumada taasaan dhihi karaa haddaan ka caawin karan waa ka caawin karaa laakiin aniga traumadiisa asoo haysta anoo dayda haysto macnaha ma naqanayso marsiyo oo korkayga kusoo koro oo igu dulmiyo okay Soomaalida anaka maanta waxaan nahnay global citizens nahay global citizen UN ka sharci ka jiro noqday laakiin anaka dhab ahaananba u nahay maalinkii dalkeena maaragtay aniga ma ka bilaabay 91 markii Muqdisho uu dagaalka ka dhacay waxaan ka bilaabayaa 27 May 1988 markii gobolada waqooyi hadda Soomaaliland la dhibaatay
ama waxaan ka bilaabaya 81 markii 77 dagaalka laga soo noqday dad badanaa hayaamay oo political refugees noqdeen soo taraamada hadda nooma bilaaban marka markii aan global citizen waxaan naqanay annaga iyo macnaha Somaliland horreysay Yugoslavia ku xigtay annaga ku xigana koonfur dhibaatooyin badanaa dhacay marka global citizen waxaa arkaysaa hal famil oo 5 cunug oo hooyo dhashay koo Australia u jira koo South Africa u jira koo waxa u jira 5 qaaradood 7 qaaradood la kala aaday صح marka global citizen aan nahnay nin walbana amba ha joogo Switzerland amba ha joogo Scandinavia amba ha joogo UK amba ha joogo America North America amba ha joogo Africa sharci inuu jiro waa ogyahay iyo gabar walba anaka dadkeenan Muqdisho joogana reality-ga internet-na haysata is different than the reality idinka idin haysata marka context-ka aan ku kala noolnahayna waa kala duwan yahay صح ya marka ka soo qaad adiga kugu hal qabsanayo oo joogtid maxaa la yiraahdaa UK aad joogtid qabiil hala dhaafaa dhahad aniga waxaan soo qoraa hadda tusaale ahaan mudulka abbaaballa aan dhaha aniga caay qof ma caaya ay ma mudulka aniga context-ka wadankan wuxuu isiiyay sharci la dhaho wadajir national framework oo dastuurkeena lagu qoray national development plan-keena inaan shanta Soomaali nahnay in qof walba qabiil uu leeyahay qabiilkii aan wax ku qaybsano marka aniga qof walba meeshaan walaxo u soo galaa waxaa kala jiro audience kala duwan groupka fanaanaa jiro koo waxaa jiro inuu cilmi baahiyo koo wariyo waaye adigoo kaleeto xuquuqul insaanki iyo wariyanimadii iyo af Soomaaliga kor u qaadistiisii iyo maaragtay hees qorowga too many hats xiran tahay many hats okay aniga shaqadeydii social media-da qaybay ka tahay صح violence against the women violence against the human rights shaqadeyday ka mid tahay cunuga la xada haddaan maqlo inaan su'aal ka weydiiyo shaqadeydii ka mid tahay laakiin anoon caytamin dadna dhibaataynin صح okay marka reality-gii on the ground marka maxuu dhigayaa wadanka wadajir national framework waa qabiiladeena kala duwan in ku wado marka qabiilka ceeb ma aha la tacaarufo waa laakiin inaan qabiil hebela saana aan dhaho oo caayo aad dhibaato keeni karto marka sensitivity-ga idinka camal qof aan dhoof jid ku tufay sensitivity idin tahay صح qurba joog qurba joogta xaakaad ku tuftay aniga inta maalin walba amba raali ka aad amba aan kaan hortayda baq lagu siiyaa dadka ma tumi karaa maya ma tumi kari waa inaan lahaadaa wax la dhaho tolerance adkaysi waa inaan lahaadaa haddayna aniga hawshayda if it's not my call I don't have no business in it wixii aan business ku leeyahayne oo anigii qayb iga soo gaaray inaan tartiib kugu imaado assalaamu calaykum aamina barnaamijka ka hadashay oo ciyaalka quseeyo ama xuquuqul insaanka quseeyo Soomaaliya ka sheegtay wax ma iiga sheegi kartaa hadday run noqdaan inaan kula ogaado oo kula baaro lagula maxkamadeeyo aan rabaa adna ani dambi ma ii qabsan kartid midda kaleetana shaqadaada sheeg ma ii dhigi kartid because aniga shaqadayda haddaa adiga kuu sheega magangeliyadayda ma qaadaysaa ma qaadi karto shaqana maba kula habo qof shaqadaada iyo mushaarkaaga iyo taadaada shaqo kala ma jiro marka taraawma ma jira kala duwanaanshaheennana waa inaan aqbalnaa aniga muufaan jeclahay baasta ma cuno may qasbi kartid dhaqanka suuban oo Soomaaliga dhigay ma ii dhigi kartid sanka ma iga gelin kartid aniga kala duwanaanshaan qabnaa midda kaleetana adiga haddaa istiraama jirta amba meeshaan af Soomaaliya ku qoraysaa cidna kuma arkaysa sidaa rabta yeel isla xisaabtana jira digital rights wax la dhahaa jira okay afis maxaa ku soo haray conflict affected countries-ka dadka jooga maanta dadka dibadda jooga badankood waa ka daawoobeen dhibaato badan oo soo marteen diihal badan dhibaato badan waa ka daawoodeen laakiin annaga gudaha ku jirna ma ka daawoobin weli marka dadka social media jooga oo qurba joogta u badan lacagaa soo dirtaan oo la badana qabtaan laakiin dalkiina waa dalkiini marka picture-ka kaligiin hadda ani kaligay hadda iska soo dhaadhiciyo
dadka dhan kalarka cagaarka ay jecel yihiin social media soo galay cagaaro wax cagaar sheegayaan waay marka ma idinku boodbooda ma idinku boodboodi kari marka isla adhowtina cafisi masaamaxaan ku dhahaa amba qaababacdi adduunkaa leesgelinaa adhowtina raalle ahaabaa lees dhahaa marka qofka raalle ah ku yiri xisaabtan inuu jiro ogyahay waa maadsantaa halkaas igu qabo naadiya intaana u gudbin waxaan rabaa inaan wax yar contactskayga ku darsado aniga horta kelmadda cafiska soomaalidu qalad bay waxyaabo badan oo qalad ka fahmnay cafis icafi waa ku cafiye maasha allah waxyaabo badan oo qalad ka fahmnaa jira qof qaawan oo mud ah wax khayr ah ay sheegaysana jirin ayaa maasha allah loo soo qoraa wadis maasha allah waa kelmad diiniya oo dinka ku taqasusta ku qabanta sorry dinta ku qabanta waay maasha allah waxaa loola jeedaa inaad qofka il nacayb iyo il jacayl labadaba ayay leedahay qofkaan inuu kula fiicnaado si aanay ishaada u raacin in aad maasha allah tiraa ilaah baa mahad leh mogtahay laakiin qofkii oo qaawan oo mud ah ummadii ilaahay oo dhanna rasaas kaga dhigaya afxumo haddaad maasha allah tiraa waxuma tarayso tan labaad tan iyo cafiya kuu soo haray saada ka hor igu dhacday qof aad iyo aad ii xumeeyey ayaa wuxuu ku soo qoray facebook buu wuxuu ku soo qoray dhowr sano ka hor bay ahayd facebook buu wuxuu ku soo qoray isagoo aymku yahay dadkii uu xumeeyey kaliga ima xumeen dad badan oo xumeeyey dadkii ay xumeeyey inay waa ku cafina u soo qoraan oo wuxuu facebook ku soo qoray xajkaan u socdaa hallee cafiye xajkaaga xaa iga jiro hadaad shalay u dulmaysid that none of my business waar xaj xajkaaga maxaa iga jira aniga ilaahay ama naarta kugu dabagadiyo ama iska dhaf ama xajkaaga aqbal ama yoo aqbalin qof walbaba waxa waaye cibaadadiisa saara markaan tii ka jawaabi waayo oo luuqa soo galay war abay ma ay cafis an blog leebu ku darab ilaa hadda blog ku jira sababtu waxa waaye cafiska is a choice dadku waa inay ogaadaan diiniyan xataa cafiska waa fiican yahay lagu yiri laakiin haddana haddaadan suubi kar isku dhibi mayso dib ma jiro qofka ma suubi karta cafis maana ma suubi karto sugo ilaahay isku day adiga ilaahayna la isku kaadayo waxba laga yaabaa qofka cafis ku weydiisana in adigu ka gardaran tahay hadhow allah kula xisaabtama taas horta waa mid ana soomaalida iyo cafigan aniga marka ugu badan arka waxa waa marka ramadaanku soo dhow yahay ramadaanku marka soo dhow yahay ay xasuusayaan ilaahay ay xasuusayaan naarta ay xasuusayaan in la iscadaabayo ay xasuusanayaan inay gaf galeen inta kalena 12 bilood kala waa deysan yahay ramadaanku marka soo dhaco habeen dambe bisha la fiirfiiri doona hadii la soo arko waa la soo midoona marka la yiraahdo kullu waxa ku soo wada qoraa ay caf xabad afima qaarna ma ku sheegaan waxa caf ma hadda ka horan qalad ka gal xaw ay qalad ma iska dhaafay laakiin caf ma cafinaay you have to say wixii ay iga gasho marka waxyaabo badan oo qaladaad ka fahamsanahay ayaa jira okay dib male iska dhaafa waa qof magaca soo badashay oo qofka halka qof ay tamaaya inuu qaldan yahayna isaga waa inuu is ogaado because intaanoo qof barnaamijka daawata oo positive soo qoraya inuu keligii soo qoro waxyaabo laga roonyaho afkaba aana soo qaban karin isaga ayay dhibaysaa marka walaalo barnaamijka adoo kaloo lagaga hadlayaa ee dhibayso aad caafimaad oray naadiya waxaa la yiri dadka toromahaya waa la kala baxay maxay ahayd toonay waa la kala baxay waxa loo kala baxay in la yiri dadkeena qaarna gabdhihii oo dooda waday qaar waxay yiraahdeen saramaha waa jira oo saramaha fawziya kaligeed waa diiday waxay tiro sarama maxay qofka si ula kaco wuxuu sameeyaa adi maxay kula taabarin aniguna waan ka duwanahay social media especially Facebook hadday Soomaali yihiin berigii hore waxa jiri jiray Soomaalidu waxay dhaqan u lahayd oo dadkii berigii hore ku dhaqmi jiray maxaa la yidhi baa la imi Facebooka but twisted waa la yara casriyeeyay 2020 muxuu noqday maxaa la yidhi wuxuu noqday tayda soconaysa iyo waxa berigii hore waxa jiri jiray reero lagu oran jiray reestabaya qabiilkii oo noqday reer istabaya awal waa la isqaban jiray leader baan waxa soo baxay qof oranaya tayda socon haday taydu socon weydo aniga groupkayga waan jiirayna qofka marka trauma ma haysa waxay la yimaadeen maxaa la yidhi the viewers bay u baahan dadkii
haye beriga hore de islaamu intay isku wareegaan ayaa la odhan jiray yaa yidhi maxaa la yidhi tiibaa facebooka lala yimi liidarkii baa odhanaya heblaayo qaawan baa soo gashay dee intii yaryareedee warka jeclaa way soo yaacayaan maxaa la yidhi yaa isqaawiye neighborskii baa ogaanaya maxaa dhacay halkaa group baa laga sameeyey soo maaha groupkaasi qof baa soo qoraya ma qofkan iska daysaan alla waa hebel waa qabiilka qabiiladii kale oo dhan ayaa isu soo daba yaacaya waa lagu degaya maxaa dhacaya for example waxaa la odhanaya aamina qabiilkeedii oo dhan baa haddana xaggan ka soo cararaya saasay ku bilowman anigu I don't see no trauma way yara casriyeeyon weligood iyo soomaalidu runta haddaynu isku sheegno weligood iyo allahood way war jeclaayeen laakiin afka way kala ilaashan jireen dadkuna way isqaban jireen iminka hadday run isku sheegno isma qabano xumaantii oyn arkayno hedhe ayay qaarkeenna iska aamusayaan qaarkeenna xumaantii sii wadaan ma haysano dad inakoo arkayno qof la dulmayo oyn 100% boqolkiiba boqol ayn arkayno ina qofkaa la dulmayo hedhe ayan inakuna durbaanadii soo qaadanayna ilaan inaka liidarkeeni waa kane qofkaasaa laga wala baqaya oo laleeyahay hadday heblaaya inoo cadhooto may bes haddaba anna waan ku xigaa hadduu trauma anu ma arko trauma anigu trauma ma arko trauma ma aragto ma arko anu trauma waa dadka dagaal soo arkay hedhe waa la iska bogsiiyaa qofkeena xanuunsanayna inay soo dhaweyno maaha inay sii eryano in odhano alla waa heblaayadii waaleed waxay noqon dhaqankayn ku haysanay soomaaliya unbay facebookina la soo galnay durbaankayn ku sidan jirnay xaafadaheena unbay weli sidana dad baa wax bartay dad baa jaamacadaha galay dad baa high level of education galay haddana maanta waa dadka ugu liitaa ee social media soo fadhiista runta haddaynu isku sheegno kuwii wax bartay of course kuwii wax bartay ayaaba durbaanadii sita haye iska daa waxaa jira kuwa soo tahriibay ee dhimashada soo arkay ee maanta marka ilaahay badbaadiyey geli ay wax yani ay meel isgaadhsiin lahaayeenna xumaan baabay biloobeen iyaguna marka trauma ma jirtee innaka soomaali runta haddaynu isku sheegno xaasidnimayn barannay xaasid bay naga buuxaa nacayb bay inagu abuurmay qabiil bay inagu abuurmay berigii hore xitaa qabiiladu way isqaban jireen iminka qabiiladii anigu runtaa sheegay waxay noqonay wixii la odhan jiray reer istabayaac waa la istabayaacaya cidba ma odhanse qofka kala xisho sax marka anigu traumana ma arko waxaan arkaa anigu soomaalidii social mediaha inay ceeb halkay ishagaajin lahayn inay ceebun ula soo fadhiisteen dadkii wax bartayna inay dib isku rideen wixii trauma u soo galayna waaba la sii waala iyagu waaba kuwa la eriyanayo ayaga waa la sii waalaya okay ku dar suqata naadiya ma dhamaysatay haan waan dhamaystay haya igala wax yar ku dar marka intaana qodobka ugu dambeeya u gudbin haya media kale because markii bulshadana ku dhex jirtid oo kale aad baa يعني وفيرنيسا وحانيقا مركو حانا وحفيريا ما أنت دان أو قفكان هالكو يعني هذا الكيس حقو أسعودا حقو كسو دوليا يعني قفكان نولش وإنا كفير سيدوكال سيبا يدادكو باهانيهين باهي أجرتا قذا أهان يعني باهي مركان كهالي كموذي باهي عنا إيبي يلو قبو لكن قذا أهان baahi baa jirta dadkii magac iyo muuqaal iyo maaragtay hebel baa hadlay iyo kale sidii kursiga Soomaaliya kale iskula haysto oo kale everybody wants to sit there oo kale yani
waxaasoo kale ayaga dhan bulsho baahi u qabta inay muuqdaan inay jiraan in laga dambeeyo in la arko ayaa jirta midaas ay u malaynayaan baahida yacni duleelka ka jirto gudahooda in ay buuxinayso haddii ay hadlaan ama like loo saaro ama share loo saaro ama love loo saaro yacni meeshaas ayay waxay ka helayaan xamaasad iyo yacni wax dhiiranaan oo kale waxay raadinayaan instant gratification waxa la yiraahdo oo kale waa hormoon jirka soo sii daayo oo kale qofka haddii maanta waxaas dhan u barto raadiskeeda ayuu ku jiraya instant gratification oo kale instant gratification wax ma buuxinayo qofka wuu inuu guda ahaan ka fiyow yahay guda ahaan qalbi ahaan ka buuxa midda duleelka kaliyan waxa buuxin kara waa alle ku xirnaanshihiisa ka mahadnaqa waxa haysatid qof muslim alle ku xamdiya inaad tahay afkiisa iyo gacantiisa laga nabad helo marka uu hadlayana yacni kalaam ma aragtay kalaamkaaga afkaa kasoo baxayaan waa inaad u fiirsatid maxaad ku biri waa lagu weydiinaya yacni muslim baa isku sheegaynaa bad erayada afkeena kasoo baxay waxaan u hadlaynaa sidii qof biri la xisaabinaynin oo kale ama waxsan sheeg ama aamus meeshaas waa ina xadiiskaas dib ugu noqonnaa marka waa baahi dhinaca gudaha ka jirto ilaahayna ha buuxiyo ayaan leeyahay mana buuxinayso no matter meeqa habeena live soo gashid ama wax aad ku hadashid ama wax aad soo gadatid ama meesha aad tagtid ama dadka ku xiranta ama like iyo live iyo sharena ma buuxinayso ilaahay iloo noqdo bas ayaa buuxinaysa alright dadkii oo noo soo qorayay wax ma ku darsan karo waa ku darsan kartaa ha si aan hadarka markaas kadib commentka akhrina qodobka labaad qaara su'aalo qaba dadka qaara su'aalo ay ma bimagudra maasha allah mid haday ka hadlaysay dad waxa jiro ma aragtay aan arkay shalay qof aytamay oo la leeyahay maasha allah ku soco waa saxsan tahay so maasha allah di xataa hadda meel qaldanay naga gashay anaga so maasha allah di waxa u yaqaanaa maanta qof qurxoon hada arko ama wax fiican marka arko oo maasha allah hadda caadi xataa maasha allah aan ku dhaarana marka oo ku soo karta ku soo waa mahadsantiin alright waxaan rabaa inaan few comments aqriyo because dadkan maaragtay daawadayaasha iga daawanaya dhinacan ayaa iyagana maaragtay aqle ayagana maaragtay barnaamij ka qayb geliyo oo commentkooda aan aqriyo tawba waxay leedahay waa sax hal qof ayaa qof caynaya dadkana waa la caynaya ayagoon aqoon bay leedahay inkastoo commentka ugu badan yahay qofkay caynayaan alright waxa kale oo ay leedahay ayaansan haybe iyadu su'aal bay qabtaa please ka jawaab bay tiri sababta dadka waaweyn cayda ugu badan yihiin dhalinyaradiina ay isaga xishootay taas ayaansanay waxa ku jawaabi doona tiimka ku jawaabi doona ama anaa ku jawaabi doona annagoo nafteena waxa laga yaaba inaanan garanayn sababta wuxuu leeyahay bashiir okay bashiir gabdhaha wagacooda waa ku dul qoran yahay marka waa yaryar yahay waana zoom systemka intaan cigaalo ka ahayn cigaalana biina isgelisay because si aan magaceeda loo arag marka cigaalo gaashaan ayaa la yiraahdaa cigaalo gaashaana la yiraahdaa gabadha hadlaysa waxay joogtaa Leicester ee wadankan UK ayay ila joogtaa Saciid Xaaji haddaan dul mara Mareykanka ay joogtaa Naadiya iyadana sidoo kale Naadiya Mareykanka soo maaha naadiya maraykanka ay joogtaa naadiya maraykanka ay joogtaa fawziya xataa muqdisho nagala hadlaysaa horena maraykanka ayay u joogtay marka aniguna UK aan joogaa magaalada Birmingham saasaanu kala nahay waxaan isku dayayaa inaan dadkii soo saaro commentigoodii war heede anigii baaba comment fara badanaa la soo qoray alright markasta qofaan jawaahir nuur waxay leedahay waxbarashada waa mid aad adigu barato ama aad isbarto ayay leedahay jawaahir raxma waxay leedahay raxmo cilmi media kuwa qaawan oo caydaba ayaa shidan oo ku socdaas la dhahaa maxaa laga qabtaa sis bay leedahay marka raxmo iyo ayaansan waxaa ka jawaabi doona tiimka ayaa ka jawaabi doona su-aashooda waxaan rabaa marka wareega ugu dambeeya inaan aanu gallo halka muxuu idinla yahay halka muxuu idin la yahay waxaan ku bilaabayaa fawziya oo xoogaa aamusnayd naadiyaan ku xijinaa dhinac kale u wadaaya fawziya
maxaa u malaynaysaa xalka inuu yahay xalka oo dhinacee because ina annaga oo bulsho Soomaaliyeed oo bulshaweynta caalamka ka mid ah aanan sida hadda aanu isticmaalayno qaasatan سيدنادي الشكون صوت برسنة والله بدو كوني الله باتنتي أي بمركان بشو يقول بريد نك تاجنتها سيدنا وحاجاتين كرنا أخلاق دينا شروع السوشيال ميديا أو دوري كرنا mental health كنا نقطة كرجري كرنا أو فكر كرنا محيط تنطبق كنا مسكح لله وحلي والي حد كي كبحيرة شكرا طه أوكي marka xalka waxa waaye sidii bulsho ahaan maaragtay social media usage-ka oo macnaha qof walba nabadgeli lahay oo macnaha dhibaatooyinkana looga badbaadi lahay dadka xanuunsanaya oo iyaguna aan ka dhexgalay oo iyaguna social media ku jirana lagu nabadgelin lahaa dadku ma wada fayooba dadka xanuunsanaya oo abuse lagu wada 24 hours 7 days per week marka maxaa xalka u aragtaa society ahaan bulsho ahaan maxaan dhaqankeena ka bedeli karnaa sideen u isticmaali karnaa ilaa dayman social media okay marka waa kala qaada kan oo generalka iyo kan oo dadka oo maaragtay mental health-ka because asaga level kala leh aniga qaybta psychosocial counselor aan ahay oo aan ku haystaa shahaado laakiin laba u kala qaada marka waxaan ku hormarayaa dadka oo maaragtay ka soo qaad taraawmada badan hayso oo ama gabdho la soo xoogay ha noqdaan ama gabdho nimankoodii soo dilay ama familadoodii dhibaateeyay ama wiilal adiga oo dhibaato private ah oo noloshooda haysata ku dhacday oo ku dhiiraday inay sheegaan oo Facebook soo galaan Facebook wuxuu leeyahay platform ku ogol sharciyan as long as aadan adiga ku xadgudbaynin diinta qof kale si choice-ka qof kale nolosha qof kale aadan ku xadgudbaynin haddaad rabta xataa inaad tiraahdo gabdhaha soo socda ama ilmaha soo socda ama dadka soo socda saasaan aniga isaga daaweeye ama dhibaatadan ay haysa haleylo ogaada aad tiraahdo it's totally fine maxaa uga hadasha privatekaaga laguma dhigi karo you are free shimbir xoraata laakiin xorriyadaadu maaha inaad dadka diintooda iyo kasoo qaad qofka noloshiisa libertyga iyo lifeka qofka inaad geli karto xorriyada qofka taas waa mid marka waa ka baxay tan oo ah sideen lagu badbaadi karaa caafimaadka maskaxiyanka ahna maaragtay stresska waa kala nooc sidee qof walba uu ku nabadgeli karaa horta waxaa lagu badbaadi karaa adiga dagaal walba dagaalkaaga maaha choose your fights wisely ya qof walba ma wada dagaalami kartiin adiga askari mahan oo yaalo oo dhaqana ilaaliha adigana ma tihid because hadda dhaqanka suuban ani ma aqaani wuxuu yahay dhaqanka suuban oo Soomaaliga oo la sheego aniga fiican ahaan iyo qofka walaalkay ah oo iigu soo dhow waxa laga yaabaa inaan isku dhaqan ku korin Soomaali isku dhaqan maaha waa kala duwan tahay kala duwanaanshaheennana ixtiraam u baahan yahay waxaa ka mid ah Soomaali isku af maaha waa in la ixtiraamaa صح aniga maayaan jeclahay inaan ku hadlo haddaan maay ku hadlo ma igu shaabadayn kartid inaan ahay xag jir iyo al-shabaab iyo terrorist ma igu shaabadayn kartid taas waa qalad weyn discrimination aad igu suubinaysaa marka dagaalkaaga choose wisely hadda kii wax dulminayaan la hadlo waaya dulmaniba lama hadlo dulmane choose wisely adiga laftirkaaga dagaalkaa galaysa because post kasta oo lasoo raaracsho taada maaha xabadna kaagama jiraan midda kale dulmiye adiga diinta mahan kuma difaaci kartid diinta haddii wax laga sheego intaa mikrofon soo qaadato dadka ma ku dhibaateyn kartid batanaa jiro sharciyo leeyahay Facebook dhag qalinka wax kumaal dadka ha gaalaysiinin ha dhibaataynin see kaloo lagu badbaadaa isla xisaabtan waa inuu jiraa aniga Soomaali ahay waxaan rabaan qoray abaayo dhaqankeena ma aha midda kale qof walba qofka kale privacy spacekiisa ha ixtiraama aniga maha walaashayaa tahay maanta ilaahay subxaana watacaala walaashay kaa dhigay ani kuma dooran adna ima dooran صح
walaaltinimadii inaan kaaga dhigo waajib adigoo ku saaran maaha aye oo mugaamahaaga imaada ki aan kuu qoray you get offended maxaa ku qosashay ay weydiisay walaashaa ahay ugu qaadan ku dhaha no ama dadka iigu jira aan kaa dhex gala ama dadka iigu jira oo asxaab ilaahay aad abuusto oo aad isa siiso libert midda kale aniga dadka waxaan ku waaninayaa digital literacygu cilmiga digitalka waa cilmi furan meel kastoo yaallaa inay bartaan sharciyada social mediadana inay bartaan aniga taasaan ku waaninaa aniga waxaan kaloo aaminsanahay qofka xuquuqdaada kusoo xadgudba laba choice aan leedahay inaad ka gudubto haddaad ka gudbi weyso oo naftaada uu khatar geliyo maalkaagana khatar geliyo nabadgelyada maskaxdaada uu khatar geliyo ama uu dhibaato familkaaga u geysto ama uu fake news iyo rumors dacaayad oo kaafiday ama inta microphone soo qaato oo yidhaa heblaayo waa shaas laba mid awooddaa waa ka gudbi kartaa haddaada ka gudbi karinne sharciga maal waxaa kaloo xaq u leedahay facebook inaad soo fadhiisato oo tiraada aniga waxaa iga sheegaysa ma ihi sharcigaana kula tagaa xaqna waa u leedahay taas oo aad digniin siiso videogaaga qof qaatay ama sawirkaaga qaatay waxaa kaloo jiro dadka u hanjaba oo lacagta mahan ka aruursado meeshaan haddaa aragto wax illegal ah waddan walba oo aad joogtaan waxaa idin saaran garbihiina malaa'igta saaran ka soke sharcigaa garabkiina aniga wadaniyad isaaranaa jirta haddaan arka lacag qalad ah oo lagu aruurinayo oo criminal activity lagu suubiyayo aamina muuse lagu soo dilaa layiri ilaahay igama dilo ama siciida khayr jecla wax lagu yeelaa I will report that mari waajib waay taas qof walba u saaran waajib waaye okay waxaa kuu soo heray sharciga haddaan maalno wadamada qurbaha aad joogtiin qof walba sharcigu ka cabsanaa waxaa kaloo laga cabsanaa ninkii la yiri ima qabo in la ogaado inuu qabo marka sharcigaaga adi haddaa ka cabsanaysa annakana inta nabadeenaan ka cabsanaa marka adna sharcigaaga aan dhowr adna nabadayda dhowr waxaa kuu soo haray marka waxaa kuu soo haray dagaal walba dagaalkaaga ma naqan karo anigoo soo qaad qofaa wuxuu soo geliyey cajal oo kabeebay la dheelayo waa ka helay laygaan u saaraa maxaa u soo gelisay ma la dhihi karo commentaa meel ka qortay see heblaayo commenta ugu qorto commenta waa qori kartaa xoraa tahay taasi waa gumaysi okay gumaysiga casriga ah iyo midda kaleeto meeshaan waxaa ka socdo isbahaysi wax la yidhaahdo oo ah isbahaysi walbana hal magac uu qabaa halkaas magac marka kasoo qaad copyright hadda aniga haddaan samaysto kasoo qaad ururka nabadda soomaaliyaan samaysta adigoo ingiriiska joogo waxaa tiri iyo naadiya iyo cigaale iyo gabdhihii kale ururka nabadda soomaaliyeed iga samaysta magacayga copy ma ka qaadan kartid I have that copyright trademark waaye waa trademarkna waayahay guruub walba magaca oo ka hormarsha magaciisa dulmidiida la yidhaha dulmiyowna qabtaa vice versa waaye okay marka adiga kuma qasbanid guruub inaad ka tirsanaatid because berita dagaalkaa ka qayb galaysaa guruub inaad ka tirsanaato ma ku qasbanid in qof kale meel uu ka jawaabay ama lagu haystay inaad tagta aad soo difaacdana kuma qasbanid laakiin waxaad dhihi kartaa qofkaa waa maqan yahay aflagaadada ha laga dhaafo laakiin kuma qasbanid midda kale laba qof isdiriray aniga fiiri hadda markaan korayo tusaale ahaan aamina waa ku dheeraadan alle markaan soo korayo waxaan ku soo koray haddaa maanta dhaho cunuga iskoolka isa soo dirirnay in lay weydiiyo horta maxaaba keena inaan dirirno oo waalidka ila xisaabtamo anoo yaraa casharkaas lay baray maadaama lay baray hadda ani haddaan dembi soo galo facebook oo qof isa soo dagaalan oo adig kuu imaad oo ku dhaho aamina heblaaya isa soo dirirnay waxaan ogahay oon 200% ogahay horta fiican umaba waaba okay waa is soo dirirteen maxaa keena inaad isdirirtaan beenan kuu sheegay waxaan ku yiri heblaaya saana iyo shakan waxaan hubaa oon kitaab jaamaca umara horta inaad dhehaysa adna xaas samaysa oo ila xisaabtamaysa jawaabi tahay of course marka Soomaaliya hadda dhaqamada kusoo kordhaa ka mid adiga just because abgaal cismaana ila tahay waa inaan ku taageeraa okay waa ku taageeraa laakiin haddaa qaldan tahayna aniga waa inaan ku qabtaa
taageeradayda ma waa inaan ku qabtaa dadka okay diidan waa inaan taageeradayda aabbayaa ku dhalay waa ku qabana walaashayaa tahay saaxiibtay waxa waaye wax kasta oo laydin sheega caqabada saddexaad oo looga gudbi karo arrintaas waxbaa lagu sheegay waxaa lagu yiri Siciid khayr jecel saan waaye marka dadka waxay iska raadsadaan laba dhibic oo Soomaalida la og yahay inay u tahay soft spot waxa waaye mid maxaa la yiraahdaa diintay nacban tahay midda lamaadne maxaa la yiraahdaa wax qalad ay soo bisaa ka soo qaad kaliya gadataa daday dishaa hebelow waa laba shay oo dadka lagu kacasho waa propaganda machine okay adiga diinta aniga evidence ma soconayso dadku waa inay yiraahdaan waa evidence marka aniga ilaahay nala he bini aadan anahay diinta waa suubantahay laakiin annaga ma suubanin bini aadan anahay waa qaldami karnaa aniga diintayda iyo maalinka qiyaama ana la raacsho qofka kale warkiisa xan ku jira ani xan ka ogahay hatta inuu dukado maxaan ka ogahay aniga kan ay dhahaysaas marka wax walba oo laydin sheego iska hubiya qofka warsada cadayn cod la soo jarjaray cadayn ma aha okay aniga waxaan jeclaan karaa inaan soo saaro muusig anigoo istaaga garidaya cayaar adiga inta ii soo gasho luuqa may dhigi kartaa videogan daji aad dheelaysa dhaqankeenu diidaya anaa doortay marka aniga maankayga waa fayow yahay markaan dooranayo marka haddaadan rabin ka soco gudub bas okay Fawzi intaasan ku koobaa marka aniga waa mahadsan tahay waa ka gudbaya marka dad badan comment soo qoray laakiin ma malaynaa inaan ka gaari karo waqtiga ugu dhamaanayo Nadia halka muxuu ku leeyahay anu horta laba shay baan horta oranaya haya horta Soomaaliya waxaad ka ducaysataan degdeg iyo aflagaadada degdeg iyo aflagaadada Soomaaliya degdegga waxaan uga jeedaa xukunka dadka markaad war maqashaan idinkoona u hubsan aad ku weeraraysaan ka ducaysta aflagaadada aad waalidkii iyo ilmihii iyo bani aadamka laftigiisii aad ku aflagaadaynaysaan ka ducaysta dulqaadna ku ducaysta xalkuna wuxuu noqonayaa marka meel lagu soo qoro karbaash xalaala anu maan maqlin wax karbaash oo xalaala كرباش واي بس حلال كنا قناة هاي وترانو لا يابنا كرباش حلالة صدح كن ولي بالوقع يا والدكي أوقفكي بين لك كشيء يقولين كرباش حلالة Soomaaliya muslim baa waladiin meeshan xumaantu ku socotaad ku yaacaysan hal maalin haday dadku isqabtaan wax heerka maanta social media Soomaalidu kumay gaari lahayn ceebooyinka dadkuna ma la soo dhigi lahayn ummadda Ilaahay oo dhan may ogaan lahayn marka Soomaaliya gacmi waliba dumarka ragga ma waa dumarka reesta baya waa dumarka warka maxaa la yiri waa dumarko idinka gacantiina ku jirta inay isqabataan joojisaan idinkana meesha camira maantana idinka idigu taagan tahay ina xumaantan joojisaan generation kala soo socda 2020 waa ceeb dadkeeni 2020 inako ku jirna inako Soomaaliya dumarka Soomaaliya waan ku yarnay dad meel gaaray runta hadan ka hadalno waxaynu gaari weynay xumaantan ku dhex jirno social media dadka caalamku si fiican u use gareynayeen ayaan inaku si xun u use gareynayna si xun aan isku adoonsanayna aan isku caayayna oon ceebo 15 ceebood aan each one of us aanu lahayn korka iska saarayna marka maxaan meel ku gaarna wadankeeni baan soo burburinay maantana social media Facebook iyo gaal ku sameeysta ayaan burburinay oon isku dhaxaysana marka anu waxa leeyahay xalku gacmahiinu ku jira inaku wax isbarno wixii fiican knowledge in mailina gaarsiinayna ay isbarno karbaash xalaalayn karbaash ka xalaalku aan noqdo wax fiican oo dadku kala baranay ma ay bani aadam anu intaas baan oranayaa dumarkan leeyahay idinka gacmiina ku jirta wax walba waa mahadsantahay waa soo cigaale iyo Saciida kadibna waan xirayaa Saciida ku hormar adiga
xalka maxay kula tahay walaashay moodka suk I will unmute you. Wow, okay. Okay, sorry, I'm forgetting I'm mood ku jiray. Horta inta badan oo maskaxdayda ku jirtay laba abaya soo sheegtay habar shaqlan iyo waxa soo sheegay gabadha. Waxaa xal loogu helayaa marka ani arko inaad Facebook aad soo gashay ama wax ka hadlayso horta inaan ku dhageysto problemka qofkan hay fiiriyo wuxuu ku hadlayo dhageysto maskaxda caafimaad qabto waaye fiiriyo anigoona isla markaas aan xukumayno qofka in aan markaas siito qofkaneeto sida hadday sheegaba aad waxaad ku caawini kartid go private midda kale oo dhibaatada nagu haysato oo social media hadda ku soo bat waxay tahay labadeena isqabaneeno waan baxa waxbaan soo raadina qof cadowgaaga wax ii soo dhiibaa facebookyaan soo gala soo yaaca aamino gurigeedi saan waay ninkeedi saan waay ilmaheedi saan waay intii ka booday qofaa soo qabana kale wuu iska kacayna they don't know who you are waxaa tahay ma oga ani xataa ma ogi waxaas liisoo dhiibo gurigaaga ka jiro problemka kale oo naga haysta meeshaas waa waxaa lagu joojin karaa markaa qofkan isqabataan ha imaanin baraha bulshada waxaad samaysaan inaad labadiina aad gooni iskula baxdaan aad midba mar isdhegaysataan oo private aad ku hadashaan aad idinka arrintiina xalisaan sababtoo dembiga qofkaas aad caynayso qofkan kale haddana aad soo qabata caynayo qofkan kale commentiga soo qoraa caynayo dee all dembigoodii adee dusha kaa saaran beri waxaa imaanaysa hadhow lagu leeyahay abaya cafi maxaa la dhahaa waas no sida haddaa sheegtay maku cafinaya sababtee waa isoo dulantay waxaana ninkayga ahayn baa sheegtay waxaan ilmeyga ahayn baa ku sheegtay waxaa aniga ahayn aad ku sheegtay you don't know who I am ma taqaanid aqoontayda ma taqaanid wax ma taqaanid see kuu cafi karaa aniga ma kusoo raadinina adi laakiin waad dadaashay saa mar kale adigu caali lahayd meeshaas soo gashay taas adi iyo waxaa shaqaysatay waayo so waxaa habboon dumarka la hadlayaa oo social media soo galo in ay ka digtoonaadaan waxyaabahan ay sameynayaan oo qof walba familkeedii naagti familkii gurigeedii banaanka lasoo dhigayo haddee la isqabto aan leeyahay private ku heshiiya private ku hadla meeshaas aan kusoo gabagabay waa mahadsantaa igala jaamac dinka haddaa iska saari karto say dadka magacaaga oo arkaan way fiicnaan lahayd marka abaya maxay kula tahay xalka muxuu kula yahay sideen dhaqankeena social media bulsho ahaan society ahaan ilaa waanu ceebaysanahe ku wanaajin karnaa social mediahina anagoo isticmaalayno dadkeena dhinac ka raacayno okay midda aan oran lahaa horta waxaan ka oranayaa dhowr qodob insha Allah waan dadaalaya inaan dhaqso yiraahdo insha Allah midda koowaad horta aniga cigaal ahaan aan leeyahay waxa u baahanahay qaab u fikirka dadkeena inaan saameyn ku yeelano midaas oo mas'uuliyad wada saaran bulsho ahaan sidaan nahay anaga dhan bulsho ahaan dadkeena u fiirso dadkeena ay daawadaan mise ay ku xiran yihiin mise ay yiraahdaan waxaa jira area isticmaalaan ay dhahaan maxaa la dhahaa dadka bulshada magaca ku leh aniga waxaas qof walba magacu leeyahay qof magac la'aan ma jirto so laakiin so called known Somali people yani la yaqaano ay dadka ku xiran yihiin dadkaas ayaa mas'uuliyad saaran tahay inay awareness wax la dhaho ay bixiyaan naftirkooda ay mar walba ka hadlaan waxa fiican oo kale ay ka yareeyaan maalayacniga naftirkooda yani maalayacniga dooda badan falceliska maaragtay dad loo jawaabay inay dadkaas joojiyaan yani keenaan programo mise ruwaayado mise I don't know dadka yani qof walba meeshu maaragtay uu ku aadan yahay mise ku abaaran yahay in uu keeno wax bulshada saameyn ku yeelan karta maskaxdooda sida mind reprogramming dadka loogu suubiyo awareness hadartaan oo kale waa xasuusataa maaragtay wadamo kale oo Afrika dhibaatooyin iyo colaad wax ka dhacaa jiro TV-yada programmada ay kasoo siideyn jireen program waxa u badnaa cafiska bulshada maskaxdooda lagu bedelay
ay yani colaadii iyo wixii iyo buuqi iyo wadamadii ay aad u xasiloonaadeen ee dadka maskaxdooda bedeleen ee dadka horumar maanta muuqda ma aragtay ay gacanta ku hayaan oo kale so dadka waxaa la rabaa bulsho awareness mar walbaba inay og yihiin wax walba inay soo gudbinayaan in ay yani ay yihiin wax fiican oo bulshada saameyn ku yeelanayso oo qulubtooda iyo maskaxdooda bedeli karta midda kale ruis inaan nahay dad xushmeeya dadka kale fikradahooda haddii aan aniga maanta aamino aad wax ku soo qortid ma aragtay darbigaaga facebooka in aan yani kula doodi karo laakiin aan xushmeynayo yani aan kugu xadgudbeynin shakhsiyadaada ilmahaaga gurigaaga waxaaga aan u dhaceynin laakiin aan kaala doodi karo fikirka meesha kusoo qortay si qaab cilmiyeysan oo edab iyo akhlaaq leh aan disagreement between us ma aragtay aan samayn karno because all your views aniga yani I cannot agree to all your views viewgaaga dhan yani aniga ma aqbali kare laga yaabo waxyaalan ku kala duwanna bilaadan baan nahay oo ku kala duwanaan karnaa but qaab respect iyo xushmad leh inaan maaragtay qofka kula doodi karo oo cilmiyeysan so waa arkaysaa marka baahida iyo maaragtay mugdiga baahi badan iyo mugdi badan ayaa jira sibaa aqoon iyo cilmi iyo wax loo leeyahay haddana sibaa loo aqli yar yahay aragtideennana u malaynaysaa in ay maaragtay gaaban tahay oo mar walba aan ku mashquulno waxa markaas lagu jiro oo maaragtay hor yaalo aan gadaalna fiirinin birin aan ka fikirin aakhiri ilaahayn wax noo hor yaalo iska daa warkeeda marka insha Allah inaan ku dadaalno ma aragtay awareness-keena in mas'uuliyad naga saarantay waxaan soo dhigno waxaan qorno iyo qaabka dadka oo la macaamilano if we haddii aan ma aragtay aanan fikradaadana aan ku aragti duwanahayna si xushmadeysan akhlaaqaysan cilmiyeysan inaan kugula doodi karo insha Allah ta'ala midda kale aan ugu dambeyn aan rabay inaan dhahana waxaa waaye bulshadeena meesha ay maanta nolosha ka joogto waxaa ka arkaysaa waxyaalaha ay daneeyaan iyo waxyaalaha ay fiirsadaan dadkan soo gala meelaha oo fariimaha khaldan wado mise ku nafisaya mise I don't know marxalada kala duwan different stage phases in the noloshooda ayay marayaan dadkaanayto ma naqaano guryahooda iyo gudahooda iyo waxooda iyo wixii kusoo dhacay ma naqaano annaga laakiin waxaa u malaysaa waxaa la yiri qof walbaba yani enerjigaaga dareenkaaga ma aragtay maxaa la yani sida aad dareemaysid waxa aad dareemaysid unbaa soo jiidanaysaa صح so dadkan keliya ma aha inaan annaga ma aragtay farta ku fiiqno fariimaha khaladka dhiibay inta kumanaan oo qof oo fiirsanayso they attracted to what they saying so naftirkooda ba ma aragtay sidaas ayay dareemayaan so bulshadeena aad ayay ma aragtay u baahan yihiin waxyaalo badan in laga saxo and mind reprogram in lagu soo biyo so anagana marka mas'uul ayaan ka nahay waxa aan qorno insha Allah ta'ala intaas aniga uga baxaya walaalaamino waa mahadsantahay waa mahadsantiin ila sii jooga wax yar barnaamijka soo gabagabaynaya horta aad iyo aad mahadsantihiin waxaan labadii su'aalood oo labadii gabdhood inta kala comment ay ahaayeen marka commenteeda kama gaara laakiin waa ballan qaaday ilaa berri waxay ku qaadatay inaan qof ugu jawaabo qofkii comment macno leh isoo qora page-kayga ayaansan waxa ay tiri dadka waaweyn ayaa waxaaya dhalinyarada ayaana ka roonaata maxay tahay sababtu ayaansanay waxaan isku dayaa ilaahay maaragtay wax walba ma wada aqaan laakiin inaan kaaga jawaabo sababtu waxa ay tahay ama wixii la sheegay ayaa dadka waaweyn haya ama dhalinyarada waxay la socdaan xaaladda caalamka hadda uu maraayo waxay fahamsan yihiin macnaha social media loo sameeyay inaanay cay ahayn saas la ajligeed wanaaguna weynan iyo yaraan ma laha ayaansanay waxa waaye hadda qofka aqligiisa iyo intuu la egyahay ayuu qofku wanaagsanaadaa waa aqli wanaagu waa aqli ma aha ma aha iyo weynan ma aha marka taas ayaa ugu wacan sida aniga ay la tahay raxma waxa ay tiri social mediaha kuwa qaawan caytamaya ayaaba ugu shidan ku soco ayaa la dhahaa sis maxay tahay sababto raxmaay waxaan u malaynayaa inay tahay hadda dadka audiensiga markaad horta sideedaba wax sheegayso waxay u baahan tahay wax la dhahaa audience dad daawadayaal ama dhegaystayaal ayaad yeelanaysaa hadda aniga caawa barnaamijkayga intiinan inta ku jirta oo dhan ayaa daawadayaal iyo in kale oo dibka daawan doonta markaan leefka ka baxo dadkaasi
waxa aniga u sheegayo ka sokow waxay iyagu yihiin oo ay aaminsan yihiin personalitygooda iyo shakhsiyadooda ayaa iyadana meesha ku jirta oo muhiima raxma sababta marka qofkii oo qaawan ama haddana soo qaawan oo haddana caytamaayo waa laba qalad kow waa qaawaya laba waa caytamoo haya sababta ku soco loo dhahayo waxaa qofkan xaaladiisa laysmaba weydiinayaba haddii qofkan qof rumaysan uu yahay sidaan barnaamijka kusoo sheegna qof xanuunsanaya uu yahay allaha u gargaaro inaad daawato qaawanaantiisa maxaa cawro faydan maxaa laga fiirinayaa anoo kaleeto anoo dhar qabaan ku hortaaganahay oo dadaboolan bal anigii cawradayda soo fayday miyaad eegi karaysaa waa maya marka inaad iska dhaafto haddaad aragto qofka inuu ama rumaysan yahay ama mental health problem qaba inaad iska dhaafto ooda badaawanba ku socona ha dhihin ka tagna ha dhihin ka leexana ha dhihin dib u gurana ha dhihin maxay tahay marka xalka labaad waxa waaye inaad tartiib dejiso qofkan haddaad private ku wici karto iyo haddii kale inkastoo hadda laysba wici karin oo qofkaad wacdaaba uu codkaa duubayo ta kale oo dardaaranka aan idinkaga tagayo waxa waaye please intaasoo Soomaali kaliya aan ahayn oo adduunka ku nool ayaa social media isticmaasha mana ceebahoodana siday kuweena bannaanka u yaalaan badanaa uma yaalaan fadlan waqtigaaga haddaaba qof 15 sano ka weyn aad tahay ogow oo maskaxda ka fiican miir qaba in laguu qorayo oo laba malaa'ig garbaha saaranta oo dambi laguu qorayo aamino hal case min la qaybsan kara adigoo raale nala qaybsaha sorry waxaan kuu sheegayaa horta dadkan Yurub iyo wadamadan jooga sharciga leh oo kale arrin baan kula qaybsanaya qof weyn oo waalid ah ayaa sawiro iyo qoraalo cunug yar oo 18 sano ka yar ka soo geliyay Facebook qofkaasoo cunugaas ku tilmaamaya in ay cunugeeda qofka qoraalka soo geliyay cunugiisa wax laga xaday mindi lagu qabtay qof kalena cambaareynaya wadankan aan joogno wiilka meesha la geliyay sawirkiisa iyo qoraalka waalidkiis booliskay waceen maadaama cunuga uu ka yaraa 18 qofkii qoraalada iyo dadkii commentigooda screenshot laga qaaday waa loo email garay booliska subaxi waaga markuu uu bariyay qofkii iridaa lagu garaacay waxaa la yiri 5 minutes baa haysataa posterkan inaad dhigtid hoos adigana ciddi baan u laabanaynaa cunuga dhalay waxa ay go'aan ku gaaraan tilaabo yacni waa lagu soo bandhigay ma maxkamad baa rabtaa inaad la aadid masaan baa rabtaa inaad samaysid calaa kulli xaal ugu dambaysti naagtaas waxaa la siiyey waxa la dhaho community something adiga oo kale record baa loo geliyey systemka hadday mar kale ciddaas usoo dhawaato mise wax ficil oo saan oo kale ku dhaqmato in maxkamad la geen karo oo kale laakiin يعني systemka way ku jirtaa intaas oo sano soo socotana way ku jiraysaa soo dadka Soomaalida Yurub jooga haday ay isleeyihiin dad bay caynayaan qoraale iyo sawiro ka gudbinayaan talaabana lagama qaadi karo they are so wrong so Soomaalida aniga waxaan ku dhiirigelin lahaa qof haduu khalad ka galo in ay sharciga meesha ay joogaan tiigsadaan example-na ay ka dhigaan sidii waxaan loo soo afjaro cigaalo waa mahadsan tahay intaas miyaa ma dhamayso okay aniga marka gabagabadii aan wado marka waxaad kala ogaataan dunida aan ku noolahay marka diin la iskala baxo anigana hal qodobaa wataa raalli ah laakiin waa kugu xigsaha maya aniga inaan dhameeyaan rabo waa inaan xiraa rabo haye soo waa hadli kartaa okay ka soo qaad waxaan ka hadlaynaa ma ogtahay mitigation cudurka intoona bilaabanin ama dhibaato intayna bilaabanin macnaha early prevention iyo mitigation aan isticmaalayna macnaha sidii loo yarayn lahay loo damin lahay soo ma ka soo qaad qofaa commentiga wuxuu ku soo qoray shaqada labada shaqo kaliya oona shacab ayna ku warsan karin ay ku qasbaneen waa inaa undercover tahay ama inaa gangster tahay markii loo fiiriyo contextka Soomaaliya dadka ku shaqeynaya oo xaalad securitygeeda ayna fiicnayn kuma qasbana inay kuu sheegaan shaqadooda aniga qof aan uga qasbanahay tusaale ahaan ma jirto diinta kuu soo hartay qofkii diinta islaamka wax ka sheego adi horta kow askari diinta kama tihid diinta islaamka qof wax ka sheegay
ama yahuudo wax ka sheegay ama wuxuu ka sheegay wadamada la joogtiin hadda tusaale qurba joog wadamada la joogtiin dad kala duwan waay haddii diintaada iyo wax ama ana hadda ka soo qaad qof mudullood caay ama hawiye caay ama ka soo qaad ani daarood waa la dhashta daarood oo caay caaydiisi offendadan u arkay ama ka soo qaad beesha jareer weyn oo caay ama digli mirafla aniga marka offendadan u arkay aflagaadadii soo ma ama ka soo qaad qof oo qanjaroofanayo waxaan samayn karaa sharciga jira oo la maro diinta islaamka ama diimaha kale qofka caayo waxaa samayn kartaa jid loo maro qofka marka oo mental health issue qaba dad badan aniga maraykan markaan ku noolaan waa arki jira dadka oo macnaha waxaa jiro cudurrada qarsoon oo gudaha ku jiro qofka weli caawinaad raadsanin ama weli stress maraayo iyo dad la og yahay inay maaragta mental health retardation ama disability qabaan sharciga wuxuu dhigayaa dadka in socialka gadaal bulshada gadaal loogu celiyo marka akaan waa loo furi karaa qofka akaan loo furo haddii la bulli garay ama asagii oo qalad galo macnaha luuqa ugu tagayo waa u nasteexaynaa ma jirto ilan qofkan waxaa waayeba already qof taraawma dareemaya ma dhibaato haysto amaho diin haddoo wax ka sheego sharcigaa qabanaya hate crime diin haddaad wax ka sheegto waa hate crime way laakiin adiga iska dhaadhicisa inaa awood leedahay oo dadka gangster group adoo ku jiro aad dadka dulmiso oo aad awood u sheegato diinta inaad ka xigtid oo kaleeto waxaa waaye mushkilo waay ما ساس وما حسنت marka ani waxaan ku gabagabayn lahay sharciga cidna kama sarreyn على sharciga ninka qoray xataa sharciga kama sarreyn okay tan diin waa maarsan tahay diin horta si gaar ah rabaa inaan uga hadlo laakiin diin ma iska caayi kartid ma baacayn kartid haddaa caysana sharciga ku qabanay laakiin aniga haddaa lacala ka soo qaad adaa qofa diinta aflagaadey aniga diinta inuu aflagaadey ma maqlay ma ujeediyo digniinaan siinaa maahan oo haddii kale waa baxa waa dacweyna simple as that laakiin ani naftiisa ma u hanjabay inta aan lacag dhiibo ama aan dad soo wato hebel fatwaha laga soo saaray iyo hebel hal la dilay iyo murtad waaye iyo ma dhahay aniga laakiin sharciga u maraani firi bas waaya waa mahadsantahay halkaas ku celi mudgal terrorism ayaad samaynaysaa haddaad qof diinta caayay aad tiraa hala dilo it is a terrorism waxaana ku qabanaya sharciga criminalka caadiga waa la iskala baxa terror law waa ku qabanaya oo wadan walba oo gooni u leeyahay diintaada waxaad ku difaaci kartaa inaad diintaada wanaag ka sheegto adiga hagoogan ee islaamka sheeganayana aad dadka si wanaagsan oo la dhaqanto aada ka daba orin dadka hadday rabaan xanuunsanaya amaba qaldan aada ka daba orin adan bankan afka dadka samaynayo dadka ku goobanaya bangaster groupska inaada ka mid noqon dadka aada comment ku qahayen taas ayaa adiga diintaada difaaci karta haddii aad rabto inaad faada iska qaado tallaabo dheeri ah qofkaas waxaa ku dacweynaysaa haddaba ogaada qofka diin caaya waa hate crime dembiyada wuxuu kaga jiraa dhinaca diima nacaybka hate crimekia sii kala jira marka wuxuu faquuqayaa dad diin gaar ah aaminsan ayuu faquuqayaa taa ku dacweyn laakiin dhaq iyo meelahan aan ka caytamaayo taasoo xal ma aha taas waa mid qofkas sharciga ka weyn na ma jirto aniga barnaamijka soo gabagabaynaa bitaas ma rabo inuu ugu dulta maqsuudka waxaan rabaa inaan dadka uga digo dadka ka duuba sida qarsoodiga ku duuba ee Facebook la dhex waraagaya dambi weyn baad faraha kula jirtaan haddii laydinku dacweeyana waa laydinku helayaa dadka sawirada dadka la soo daga kabacdina waxay rabaan ku dul qora oo boostiga saarta ayagana saasoo kaleeto dambi weyn ayaad idinkana ayaa adigana ku jirtaa oo waana laguga dacweyn karaa haddii aad rabto inaad diin difaacdo qaab sharciya qaab sharciya ku difaac laakiin qofka ugu mahanjabi kartid waa lagu dilaa iyo xataa ma cay kartid iskaga bax meeshiisa haddaad rabto hate crime ku dacweeyo qofka haddii qofka qabyaalad qof uu qabyaalad timbara qabyaaladeed kugu dhajiyo hate crime waaye sharciga intaan stationka booliiska la isla gaarin wuxuu dhex yaallaa Facebook just to report them and then print it out inaad report garayso Facebookkaaga meel baa jira oo galaayo reportyadii aad samaysay oo dhan waxaad print garaynaysaa and then you contact to the police poliiska ayaad la contact garaynaysaa meeshaan ma noqon kartiin umar alibeysateena oo iska nool oo haddana adduunka ka tirsan Somali society
runta idin sheegaya ma noqon kartaan animals ma tihiin xawayaan laydinku tirin maayo waxaa laydinku tirinayaa dad inaad tihiin dugaag ma tihiin saas la ajligeed please be human dad noqda sida dadka adduunka u dhaqmaan u dhaqma sharcigana aamina kuna dhaqma after all sharci ayaa wadamadan ku joognaa dibadda ya sharciga aad waddankiisii haysatay ma ku qaldami kartid kumana ogola inaad dadka kale oo other citizens the country ah ama Soomaaliya jooga meesha raba adduunka jooga inaad ku xadgudubto after all waxaan rabaa inaan idin sheego ugu dambeyntii waxaan u mahad celinayaa martidayda cigaalo gaashaan سعيدة حاجي عقالة قاشان سوري عقالة جامع قاشان وحي جوكتا عقالة قاشان جامع ما قصوا كل هالرأي ما قصوا الرالها وحي جوكتا ودن كان يوكي مقالة الليستر سعيدة حاجي وحي جوكتا تلك مريكنكا نادية وحي جوكتا مريكنكا فوزية عدل لا قبر مريكنكا تقليد لكن هذا شقاء جوكتا ودن كيري مقالة دي مقدشو أنا نواسكا كي كسلسان مقعيد وآمن المسويدي أنت أنا أقوني برشو ونكسن النكس بروجرام وعاوة هذا أوكلا أضوطان أوكلا تايدعي دونتا wuxuu ku saabsan yahay sex predator wuxuu ku saabsan yahay nimanka sexualize gareeya everything oo Facebook laga joogi la yahay oo sawirkaaga oo iska asturan tahay intay la soo tagaan luuqa kuugu soo qoraya maanta dhan ku dhahaya haddaan saan wax ku gelin lahaa haddaan xagga kaa taaban lahaa haddaan xagga kaa riixi lahaa next program it's on them ayaga ayaa ku saabsan tahay aniga ayaa ugu horeeya oo example soo dhigi doona dadkii marka shifaaya laakiin examples fiican because dad badan ayaa qadiyaan ka taaganahay gabar walba oo Facebook inta saasay qadiyaan uga taagantahay please suunkayga 100 qof oo qaada laakiin 100 qof ani kaligay ma maamuli karin marka waxaa u baahanahay 10 qof ama 8 qof ama 7 qof oo qodobkaas si fiican oo effective leh uga hadasha ayaa u baahanahay ayaana barnaamijkaasna sex predator buu ku saabsan yahay amaba nimanka sexualize gareeya wax walba oo sexka xaaraanta ah galmada xaaraanta ah annaga Facebook rabaan inay noogu galmoodaan sawirkaaga markii la soo dogsado oo wax galme ee laga sheekeeyo sawirkiyaaba loo galmooda camal waayo psychologically iyo mentally everything saasay la baxda tahay انت سوي كي اسكت تبي يقول شاطر انا ما انت انت ما ودي كرت waa qorxanta xagga ka kuusanta nasan ka taaban la nasan ka riixila no you cannot say that wala iskala gudbay dumarka Soomaaliyeed waxbay barteen sabarkiina waa ka dhamaaday idinka sabarkiina naga dhameysay so we should talk listen waxaan u baahanahay doodaas kala bar inay rag ka qayb galaan nadiif ah oo arrintan awaaqibkeeda dhinaca diinta ku salayn kara dhinaca dhaqanka ku salayn kara dhinaca bini'aadanimada ku salayn kara you are criminal you are sex predator tahay kuwa ilmaha ku soo oo raaxada dadka qaadana adiga waay aniga kulan dambe waa aniga iyo idinka iyo martidayda sharaf kale oo mahad celinayo kun jeer waa mahadsantiin oo idinkaga tagay sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Hey, nabadgelyo waa mahadsantahay Amina, thank you for hosting us. Saciida iyo Cigaalo iyo Nadia waa mahadsantihiin. Thank you Amina for hosting us. Iyo dadka oo baraha bulshada nagala socda, thank you. haya waa ka baxaa marka thank you very much waa soo noqon doonaa